arjun ii sheeg hooyo maxaad ka fikiraysay waxba hooyo laakiin waxa weeyaan haddaysaa tahay in mar hooyo wada qadayne oo ay keentay maalmo waynu kala maqnaan maynaa wada qadayn balse wara hooyo maanta waxaan kuu sameeyey xuntooyinkii oo aad jeclayd oo dhan hooyo anigu hadda maraba inaan cuno orod keligaas ka cuno anuu cunta waayo hooye maxaad leydhka u demisay aad daaqada daha ugu sii daysay maxaa jira ma jacayl baa ku helay qolkiiba si buu noqday bal daaqadan kuu furaya waayahay suu qolku ilaa iskugu soo galo qolkiiba madow buu noqday wal maxaa kaa qaldan hooye hadha su-aalo badan baan doonay inaan ku weydiiyo safarkiina siduu ahaa anigu markaan joornaalka akhriyey waama rumaysan waayey kadibna anigu waxaan ku fikiray fadlan hooyo anigu hadda xaaladda ma deganaa mana rabo inaan mawduuca ka hadlo okay hooyo ma ogaan karaa waxay xaaladaadu la xun tahay mise waa maya hooyo ma waxbaa jira aad diidaysa inaad ii sheegto ood iga qaranayso arjun adigu baryahan ma la kulantay sumaan mise maya hooyo wax fursadan kula kulma iyadoo ma helin marnaba caqligal miyaa tahay qofkii aad halkaa u tagtay inaad la kulmi weydo oo aad waqti u weydo war waayahay ma siisay shuuliyadaan kuugu dhiibay mise waa maya waayo gacmaha kusoo baxaya hooyo maxaa khaldan maanta ii sheeg miyaanan kuran aniguna mawduuca hadda ka hadla diyaaru maahi mana doonayo arjun warwar baa igu jira waxaan rabaa wixii ku helay inaan ogaado ilaa markii aad soo noqotay ilaa hadda halkaasunbaad fadhidaa hooyo wax ii sheeg kuma eegan karo hooyo adigoo sida tan u tabcaansan waan ku baryayaa ii sheeg hooyo marun ila hadal anigu aad baan kuugu warwarsanay mana garanay anigu waxaan kuugu sameeyo si aad u nasato oo aad farxad u hesho hooyo waan ku baryayaa hayga cadhoon waayo ma jeclin inaan ku arko indhahaaga ilin aad baan ugu xumay hooyo waan ku raali gelin soomi idhigayso haddii aan arjuun sidan oo dhan u ammaanay macnaheedu ma aha arjuun inuu beriim ka wanaagsan yahay waa hubaalo arjuun nin ka wanaagsan ma jiro laakiin beriimna cid la midi ma jirto adduunkan amiiradaydii beryaaye hadalkaagu wuu saxsan yahay laakiin waqti xadarkan arjuun iyo beriimo joogaan saan uga sheekayna iyaga ma garatay haa waa sax hadalkaagu waynaan hadda ka fekeraa qorshayaha aan naarindara qasrigan iyo noloshaydaba aan kaga saari lahaa talo kii beriim muxuu samayn doonaa hadda abqarow wax ma ku sheegi karaa adigoo iga raaliya yaa ii sheeg boo labanku dhaqso hadan brim ayaa naarandara qadiga garaashiisa ayay meel ku wada sheekaysanayaan baan ku afka oo maxaa tidhina ay rumaysan baan ku afka iskaliyeen aqalkaasi ku jiraan baan arrinta siin iyo biriin yaa waynan soo arkaa sumaanaya cabsi baan bilaabay aniga dartay maaha reerkaygaanu cabsanayaa kii beriim warka ma hayo naani iyo hooyadayna waxba iima sheegayaan ma aqaan meelay isla marayaan arrinka ka warran haddii mashaakil la kulmaan fiicnaan lahayda anigoo war bannaan ka soo hela markaas ayuunbaan nafisaya sumaan imanisaanaya amarkii boqoradana sumaan weligiiba amarka boqoradda maan dhegaysan maxaa iminka isbedela ii sheeg weligani maan ogolaan jirin manaan fulin jirin hadda waxaan rabaa inaan ogaado wixii bannaan ka socda ina mari baan kugu idhi ina beriya nakaan riya narendra
biriin oo sheeg maxaa dhacay oo naarendro maxaa dib si joojiyay taaskii maqashii adar miyaad islahayn xadkaagii iyo dhaqankii reerkan bood ka gud uu sii daayay beriyaana raaci mayse khatarna kuma jirto biriinow adeero aad baad mahadsan tahay waayo inantayda ayadii badbaadisay ood ka badbaadisay ninkan naaran diraya sharka uu wato iyo masiibadiisa aad baan kuugu mahad celinayaa biriinow idinku ugu dambayn ehelkayga oo kalaa tihiin haa annagana reerkayga hadday sidan oo kale ku dhici lahayd waan u qaban lahaa intan iyo in ka badanba haa rumaysta tan oo kale ayaan samayn lahaa anigoon abaalmarin codna ka sugayn aad bay maasanta biriimo naanin daran masiibo weyn buu ahaa xal loo heli karay adiguna waxaad noo samaysay macruuf wanaagsan oo aan leeloobi karin laakiin naanin dara awoodiisu way badan tahay mashaakilkiisa misaa ku dhammaanaysa maaha umana malayna inuu tanoo kale ilaabayo oo nin xuna bila akhlaaqa sidiisoo kalena u malayn maayo inuu saa nagu daynayo faraha nagaga qaaday inaga wuuna soo noqonayaa si inooga harsada dhammaanteen haddana digniintaasi way noo muuqataaye waa inaynu ka hortag samaynaa dee xaaskayga way saxsan tahay ninkaan adana darana si fiican ayaan u naqaanaa iyo wuxuu samayn karaba ninkaasi waa nin khatara markuu doonana qasrigan uu kusoo noqon karaa isagoo wax markaana dhammaantiin wuu naga aarsanayaa ee rumaystamaan nidhi anigu waxay la tahay ninkaasi mar dambe inuu muruqiisa ina tusi karo oo wuxuu doono inaga samaysan karo marka taa macnaheedu waxay tahay khatarta amirabriya way sii kordha inaan ilaalino weeyaan intaa inka badan qofkeenna mooga qorshaha kale ee uu ninkaasi soo diyaarsan kara hadhow soo carsumani antaydii maxaad halkan ka qabanaysaa maxaad halkan ka qabanaysaa miyaanan golon qolkaaga tago ha ka soo bixinayayar naaniyay maxaan kugu yidhi adeer sug bal hadda boqoradiyey kaalaynantay aabba waxaad ka cabsatay ayaanu jirin habaarqabihiina inaga tegay laakiin boqoro waa inaan is ilaalinoo isubsanno naaran dara inuu soo noqonayn niyahin kale midtaasna waa waajibna saaran aniga haya hal kale oo sidaa ka fudud ka warrama haddaynu nin kale u guurina amirabriya saa ugu dhaqsaa badan markay amirabriya nin kale uu guursado markaa waa hubaal naarendra wejigeeda xataa ma eegayo waanan hubaa inuu ilaawayo guurkiiyo wixii ku fakarayna maskaxdiisa ay ka baxayaan soo sidaa maaha boqoradiyey kadib ceebtii iyo cadiyadda ay saddexda casho la maqleed ay noo soo hoysay waayo ninka raalli ka noqonaya guursanaya iyada ii sheego bees haddaba iga kala boqoradiyayaan sheekhadaydii ninkaasi oon danaynaynin wixii dhacay oo dhan iyo ceebaha aad sheegayso o dhan adiga oo jecel inuu inantaada beriyaa guursado weliba isagoo ku faraxsan maxaad ku hadlaysaa beriimo hadalkaad leeday ma fahmi kartaa haa boqoradiye si fiican ayaanu garanaya waxaan ku hadlaya weliba waan hubaa inankaygiiow ii sheego waayo ninkaad ka boqoradii anigu si fiican baanu garanayaa ninka waxaana dilaa idinkoon ka laalaaban u guuriyay inanteena siiya nin ka wanaagsani ma jiro nin kaloo u qalma beriyana ma jiraan isaga ahayn
mahadsanid naanigay waad ku mahadsantahay inaad igu tilmaantay nin wanaagsan oo aad iyo amaantay aad baa u mahadsantahay wallaahi naani adigu ninkaa miyaad garanaysaa isaga boqor cudaysiino amba ninkaa waan garanayaa hadalka bariimna waan ku raacsanaya kanaaniba si fiican baan u aqaanaa waana ku kalsoonahay inuu farxad gelinayaa midabiriya waa si wanaagsan hadda waxaad diyaarisaanba waa arooskaygii iyo alaabihii iyo hudheeladii fanaaniintii laakiin waqti yarun suga wax badan maaha waxay ninkaad maantaba ka hadlaysaan ii sheega waayo boqoradii waqtigan iyo waayahan aynu ku jirno waa ninka keliya inantaada ku munaasibka ee aan marnaba diidayn sheeg naaniye fursad ay ku tahay inaad waqtigan sheegto qofkaas qofku yahay hadaloo dee sheeg maxaaf ku haystaa qofkaas sheegaysaa inuu brim yahay sheeg dhaqso waxa weeyaan arjun siday la tahay waa arjun ninka ku munaasibka mirada u qalmaa waxaan idinku yidhi maxaa idinka siya caqligiinna ma baranbaraa gashay ma waxaad rabtaa ninkii mushkiladan oo dhan ka dambeeyey ee dartiis inantayda beriyaa u baxsatay ee aan gurigayga anigu aan ka eriyey inaan ku soo celiyo weliba isagoo inantayda guursanaya taas caqligal maa macquulla maa mana ogolaanayo mana yeelayo lagama yaabo inaan waafaqo arrinka boqoradii waa hubaal dadku way og yihiin arjun iyo beriya in iyagu isla maqnaayeen oo il maalmo iyo habeenba iyagu ay wada maqnaayeen saa daraaddeed dadku iyagu dee way nagu sheekaysanayaan wax walbay ogyihiin wax xun iyo wax wanaagsanba way naga sheegayaan sidoo kalena waad ogtay saxaafaddu inay wax badan inaga qortay oo ay xaaladda qasriga oo dhan la socoto bal waaya ninaan ninka ay la baxsateen haddaynu beriya u guurino maxay dadku inaga sheekayn doonaa hadhow war brimo maxaad la taagantay meesha sida looxa wuxuun samee cajuusadan xume qorshahaagiibay kaa kala daadisay xadkeedii inuu kasoo gudbaysaa kadib wararkaa suuqa inoogu jira waxaa wanaagsan magaca beriya inuu ku xidhmo magaca arjun kadibna inanteena beriya arjun farxad ayay kula noolaanaysaa dadkuna way iska aamuseen wax wara iyo wax xumaano ay naga sheegayaan ma jirto boqoradeediya go-aankaasina waa mid adiga uun ku yaala maxaa baasi islaanta baasi ka sheekaynaysaa maxay ka hadlaysaa iyadoo weliba og inay amiira beriya anigoo keliya jeceshahay inkaari ku dhacday maxaa ku dhacay maxaa arjun aniga waddadeeda dhigay waa hubaal islaantani faja ayay wadaa oo waxay rabtaa sidaan arjun ugu dhigay inay iyaduna aniga igu dhigto laakiin waa in axad u sameeyaa islaantan sidaa maaha tan anigay noloshayda tahay anaana go-aan ka gaadhaya waxaad samaynaysaan anigu arrinka ma ogoli idinkumana raacsani waan diiday boqoradii hadalkaaga waa sax ninka inaan guursado maaha xataa rag hadduu keligii ka hadho sidaan u guursadaa maskaxdayda mar qura muu gelinay haddaan maalmo la soo joogay ma inaan guursadaa khasaba kuma khasbani noloshada inta ka dhiman isaga inaan la noolaado weydii sidee anigu arjun guursan maayo mana doonayo inaan guursado la noolaado ma dhacayso ma rabo isaga anigu ma aqbalayo guurkiisa u sheeg dadkan arjun inaanan u qalmin munaasibna aanu igu ahayn u sheeg waa markii ugu horreysaan dareemay go-aanan qaatay inuu qalad yahay oo hadalkaagu saxsan yanaan yahay inaani nin ay maalmo iyo habeenno meel keligii ay la joogtay cid ogolaanaysa inay guursato haba yaraatee ma jirto keliya waxaa guursanaya ninkay meelaha la warwareegaysay boqoradiyey nayaam hadalkaaga ma maqli karo afkaaga iga xidh baan kugu idhi waa waddada keliya in ceebtaad noo keentay ku masixi karno tani hadda laga bilaabana adigu go-aanka aan qaatay ayuunbad waddadiisa maraysa laakiin nabas
go-aanka waan qaati waanu fulayaa ninka keliyaad guursanaysa waa arjuun nin kale walaa aad guursanaya baan ku idhi maya hooyo lagama yaabo inaan guursada ninka sidaa doonto u hadal go-aanka doonto qaado laakiin aniga waxaan kuu sheegayaa inaanan guursanayn ninka isaga ee aan guursanayo ninkii aan doortay oo keliya waana go-aankayga ugu dambeeyey mana bedelayo cid bedeli kartaana ma jirto wale ii sheeg ma qofaa maskaxdaada ka guuxaya haa oo ii sheeg ii yahay ninkaas inala leefalka ee sharafta iyo cisiga leh ee wax walba inala fahmaya sidoo kalena adiga waxaa kugu dhacay og haddaa hayso ninkaasoo kale haddada ii sheeg anaa kuu guurinaysa ugu dhaqsaha badan ii sheeg iyuu yahay nacaska kugu ogolaanaya wax kasta hadday reerkayga farxadda ii diidayaan maxay adduunkan iigu daynayaan ii dili waayeen dhimashada aniga ii dhaanta noloshani waxba ii tari mayso inantaydii maxaad ku hadlaysaa waxaad ku hadlaysaa macquul maaha dadka qasrigan jooga dhammaantood waa ehelkaaga maslaxadaaday rabaan maslaxadayda ah wanaagad ka hadlaysaa muxuu yahay hadday tani wanaagayga tahay maba rababa waan diiday si kastaba ha noqotee naanihii adigu arriman maba soo dhexgeli karti waayo wax kasta sababtaada ayay ku dhaceen adiga waan oga inantaydii bal uga yaraan ii dhegayso oon ku baryaya waxaan dhegaysanaya ma jirto hadalkaagana ma rabo weligiiba waan kugu kalsoonaa laakiin maanta kalsoonidaadaa burburiyey bal aniga haygaba fakerine suumaan yaraan ka faker adigu waad og tahay si fiican baad u og tahay inay suumaan arjuun jeceshahay saasoo tahayna waxaad rabtaa inuu aniga ii guursado arjuun wax yar baad jiro oo aanad fahansanayn amiiradii soomaan iyo arjuun waayahay haddii aad u malaynaysa inaan qaldanahay markaa kuu sharaxi maayo waxaasaanu yeelay laakiin hal waxbaan kuu sheegaya wax kastoo adiga kuula muuqda qalad mararka qaar qalad ma noqotay amiiradiyey idhigayso markaynu daruur madow samada ku aragnay waxaanu isnidhahnaa noloshiinuna sidaas ayay u madoobaatay waynu naxna waxaan isnidhahnaa noloshiina khatar bay ku jirta laakiin marka daruurta madow ay roob uu ka soo do-o markaa waynu faraxnaa oo markaa waxaa shar u arkaysaa mararka qaar khayr kuu noqda inantaydii dhegaysaa miradaydi anigu waan ogahay waanan dareemayaa wax kasta oo adigu aad dareemayso laakiin in yarun haddaad igu kalsoon tahay hal mar hadalkayga dhegayso taladaan ku siinayana maqal oo arrimahan oo dhanna bal wakhtiga u daa naftaadana fursad yar sii hadhowna waxaad ogaan doontaa waxaan oo dhan sababta ka dambaysa iyo meesha wanaagga uu ku jiro mid kalena way jirtaa inantaydii wax kasta oo hadda dhacaya waa waxaad nasiib u lahayd waana qadarkaaga inaad ogolaatana waa khasab cid bedeli kartaa ma jirto walaa hooyadaada boqoradda ah walaa adiga walaa aniga inantaydii inankaygii brimow aad baan kuugu mahad celinayaa wax wanaagsan ayaad noo samaysay qasrigii ayaad badbaadisay aniga sumcaddayda ayaad badbaadisay wax kastana waad hagaajisay haddii aanad adigu halkaa joogi lahayna sumcaddaydana saas ayaan ku waayi lahaa inantaydana sidaas ayay igu dhaafi lahayd waad ku mahadsantay inaad ii soo celisay si kastoo aynu dad aan isaqoon waxba isu haynayno u nahay haddana saa maaha boqoradaydii anigu ilaa maalintii aan soo galay qasrigan anu waxaan idinka dhigtoon u haystaa inaad tihiin ehelkayga qaraabadaydii qoyskaygii tolkaygii onoga inaad tana idiin noqonayso inaan sidii idinku milmayo kale ay tahay laakiin dee maxaan sameeyaa waddo kale ima banaana anigu keligey baan ahay adduunkan keligey baan ku ahay ehelna ma haysto anigu laakiin waa idin jeclaaday jacaylkaa dartii baana igu kalifay inaan idinka badbaadiyo waxaasoo mashaakilo idinku safoon lahaa gaar ahaanna mushkiladdii iyo marxaladdii maalmihii dhaweyd aad ku jirteen oo kale haa laakiin hal mushkilad ayaa jirta ilaa hadda oo aan xal loo helin
oo maxay tahay mushkiladaas boqoradii adigu waxaad go-aan ku qaadatay arjuun inuu guursado beriyaa laakiin kamaad fikirin arjuun go-aankiisa inuu diidayo in kale markaa haddii uu diiday arjuun inuu guursado beriyaa xaalad xun ayaynu gelaynaa oo mowqifkeenu wuu isbedelayaa dee hadalkaagu waa sax biriimow taas waa maad dhici kartaa hadday dhacdana waxaan gelaynaa mushkilad tan ka weyn oo aynan xallin karin biriim mar baad wax noo qabatay oo dadkayga aad caawisay mar kalena waxaan kaa rabnaa inaad si fiican noo caawisid biliis waanu ku baryaynaa adigu waxaad tahay saaxiibkii arjuun waanad garanaysaa wuxuu ku fakirayo saaxiibka